duulaanka uu Ruushku ku qaaday dalka Ukraine dabayaaqadii bishii February wuxuu u muuqday mid laha ujeedooyin gaar ah oo laga sii baaraan degay iyo goobo la sii bartilmaameedsaday. Marka laga reebo caasimadda Kiev oo ahayd bartilmaameedka koobaad, waxa iyaguna jiray goobo kale oo ciidamada Ruushka muhiim u ahaa, waxaana barahaasi ka mid ahaa warshaddii nukliyeerka ee waddanka Ukraine oo ay Moscow aaminsaneyd in ay tahay goob dib loo howlgelin karo amaba ugu yaraan ay ugu tegayso kayd ay Ukraine ka qabsato. Ha yeeshee hadda waxaa lagu soo warramayaa in taasi mid ka duwan ay ciidamadii warshaddaasi la kulmeen kadibna ay iskaga baxeen goobtaasi. Sida warbaahinta Ukraine ku sugan ay sheegayso, ciidamadii Ruushka ee horay u qabsaday warshaddii nukliyeerka ayaa bilaabay inay iskaga baxaan halkaasi oo ay haysteen muddo bil ka badan kadib markii ay la kulmeen shucaac ay sababtay godad ay ka qodeen goobta oo la aaminsan yahay in uu ku aasanaa hadhaaga nukliyeer qarxay 80-yadii qarnigii hore. ciidankii isku dayey qodista dhulka kaynta ah ee warshadda ka agdhow ayaa la sheegay in xaalad caafimaad xumo oo aad u darani la soo deristay, iyadoo loola cararay dalka Belarus si loogu soo daweeyo. xubnaha waxyeelladu soo gaadhay qaarkood ayaa la sheegayaa inay indhaha wax ka qabaan, isla mar ahaantana ay dawaqayaan oo aanu maankooduba si hagaagsan u joogin. shirkadda tamarta ee Ukraine ayaa sheegaysa in kabixitaanka ciidamada Moscow ee aaggaasi uu yimi kadib markii khubarada dhanka nukliyeerka ee goobta soo gaadhay ay sheegeen in xaddi aad u badan oo shucaaci uu ka soo baxayo dhulka, taasina ay tahay mid halisteeda leh oo waxyeello dheeraada sii gaadhsiin karta ciddii halkaasi ka agdhow. inkastoo Ukraine ay sheegayso in aanu soo wada dhammaan kabixitaankii ciidamadu halkaasi ay ka wadeen, hase ahaatee hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha nukliyeerka ayaa iyaduna sheegaysa inaanay si madax bannaan u xaqiijin karin in ciidamadii Ruushku la kulmeen shucaac waxyeello daran keeni kara iyo in ay si kale goobta wax uga soo gaadheen. Ukraine ayaa ku doodaysa in ciidamada Ruushku sii kaxaysteen isla mar ahaantana la baxeen dad shaqaale ahaa oo ka mid ahaa kuwii goobta lagu qabtay markii uu Ruushku 24-kii bishii February la wareegay goobtani, kuwaasi oo Kiev ay sheegayso in aanay garanayn goobta la geyn doono. 26-kii bishii Abriil ee sanadkii 1986 qarax ka dhacay warshaddan oo ka mid ahayd waddanka Ukraine wakhtigii Midowgii Sofiyeeti ayaa sabab u noqday in waxyeellada suntii ka dhalatay ay ku faafto aaggii goobtaasi ka agdhowaa, iyadoo la sheegay in xataa suntu gaadhay galbeedka Yuruba. waxaana khubaradu ay qabaan in shucaacan waxyeellada soo gaadhsiiyey ciidamadii Ruushku ay yihiin hadhaaga suntaasi oo dhulka ku hoos jirtay. dowladda Moscow ayaan ilaa hadda si daahfuran uga hadlin arrimahan iska soo daba dhacaya ee la xidhiidha in warshaddii nukliyeerka ay ciidamadeedu uga baxeen kadib markii ay ciidankeedu ku xanuunsadeen.